ku-xigeenka madaxa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Danjire Herson Senenga ayaa waxa uu sacabatumay qodobo ku jiray khudbadii madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay xuskii maalinta qarannimada Soomaaliland ee 18 May. madaxweyne Biixi ayaa khudbadaasi jeediyay habeennimadii 18 May waxaana uu madaxweynuhu ku sheegay khudbadaasi in Soomaaliland ay sii deynayso maxaabiista ay maamulka Puntland kaga qabsatay dagaalkii kal hore ku dhex maray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. waxaana uu madaxweyne Biixi dhinacooda maamulka Puntland ka dalbaday in ay soo daayaan 3 maxbuus oo ay Soomaaliland kaga qabseen dagaalkaasi. waxaan diyaar u nahay oo nabadda niyadwanaag ka bilaabaynaa caawa. waxaan doonayaa inaan u ilaaliyo inaanu diyaar u nahay inaan sii dayno maxaabiistii lagu soo xidhay dagaalkii Tukaraq ee halkan ku xidhan, iyaguna ay soo wareejiyaan wixii ay naga hayaan. waxay naga tahay inay xabsi ku jiraan inaanay waajib ahayn, sidaa darteed waxaanu codsanay iyaguna inay diyaariyaan waxay hayaan. aynu hay-adihii ku shaqada lahaa ee hore inooga dhexaynayeen waaqintaas ay ahayd inaynu arrintaa dhammayno xaggayaga waa ka diyaar, idinkana taasaanu idinka filaynaa. haddaba hadalkaas madaxweyne Biixi ayaa waxa uu khudbad u jeediyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay toddobaadkan ku soo dhaweeyay ku-xigeenka madaxa xafiiska qaramada midoobay Danjire Herson Senenga. ergeyga qaramada midoobay ayaa waxa uu hadalkan ka sheegay kulan gaar ahaa oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu warbixin kaga dhageysanayay. waxa uu Danjire Senenga uu sheegay in wadahadallada la isku mari waayay ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ay saameyn ku yeesheen dib u eegista iyo dhamaystirka dastuurka ee dowladda Soomaaliya wado. hase yeeshee waxa uu Danjiruhu yiri waxaana dhiirigeliyay khudbadii uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay xuskii 18 May ee uu ku cadeeyay sida uu diyaarka ugu yahay in uu Puntland kala shaqeeyo arrimaha nabadgelyada oo ay ku jiraan isdhaafsiga maxaabiista iyo in Soomaaliya ay iska kaashadaan arrimaha la xiriira ammaanka, ganacsiga iyo tacliinta. sidaasi waxay Danjire Senenga. dad kale oo badan oo reer Soomaaliland ah ayaa waxa iyaguna hore u soo dhaweeyeen qodobkaasi ku saabsanaa sii deynta iyo isdhaafsiga maxaabiista, iyagoo aaminsan in nabad waarta oo dhex marta Soomaaliland iyo Puntland ay kor u qaadayso dhaqdhaqaaqa dhaqaale iyo ganacsi ee Soomaaliland.